wiilkan yar ee 7 jirka waxa uu soo joogay in dhuxumadii ugu adkayd uu qof bini'aadan u joogi lahaa waxa uu maxkamadda gudaheeda kaga marqaata furay hooyadiisa waliba inay dishay asaga walaalkiisa sanadii 2007 gabadhaani lagu magacaabo Amanda Lewis waxa ay ku nooleed gobolka Florida ee dalka Mareykanka Amanda waxa ay haysatay laba caruur ah gabar 7 jir ah oo lagu magacaabo Adriana iyo wiil lagu magacaabo AJ oo 6 sano jira sidoo kale Amanda xilligaasi waxa ay ka shaqeyn jirtay isbitaal halkaasi oo ay ka ahayd nurse assistant inta badanna waxay shaqeyn jirtay habeenkii ama waxay gali jirtay night shift inta badanna guriga waxay imaan jirtay ayadoo daalan ama dhafarsan subaxnimadii 7 Agost 2007 Amanda Lewis waxa ay ka soo laabatay shaqadeedii isbitaalka ayadoo soo dhameysatay night shiftigeeda ama shaqadii ay ku jirtay habeenkaasi markii ay timid guriga waxay aragtay gabadheedii yar ee Adriana oo TV-ga ku buufisay isbariga lagu talagalay in lagu buufiyo muraayadaha guriga intaasi kadib Amanda waa ay xanaaqday kadibna waxay gabadhii la aaday buulka